Itoobiya ayaa u ruqaansatay dagaal sokeeye Arbacadii xilli ra'iisul wasaarahooda ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel uu amray in militarigu ay waajahaan gobolka Tigray ee sida aadka u hubaysan ee dalkaasi iyadoo uu ku eedeeyay in ay si daran u soo weerareen saldhig militari isla markaana uu shaaciyay in laga soo gudbay khadkii casaa ee u dambeeyay kadib muddo bil ah oo lagu eedeynayay xasarado talaabada ra'iisul wasaare Abiy ee ka dhanka TPLF ee mid ka mid ah dalalka ugu dadka badan isla markaana leh militariga ugu awoodda badan ayaa u diraysa mowjad la yaab leh gobolka Geeska Afrika ee colaaduhu ay muddada ka taagnaayeen sida kuwa dariska la ah Itoobiya ee Soomaaliya iyo Suudaan muuqashada halista ayaa Mareykanka oo bartanka kaga jira doorasho uu soo saaray warmurtiyeed uu ku boorinayo in degdeg loo dejiyo xaaladda internetka iyo khadka telefoonka ayaa laga jaray gobolka Tigrayga iyagoo iska caabinaya tallaabooyinka xukuumadda Itoobiya ayaa war laga baahiyay telefishinka Tigrayga uu dawladda federaalka ku eedeeyay in ay ku soo daadgureeyeen ciidamo si ay u cabsi geliyaan dadka Tigrayga xoogna ugu cadaadiyaan iyagoo sidoo kalena sheegay in hawada sare ee gobolkaasi Tigrayga la xidhay ra'iisul wasaare ayaa shaaciyay dhowr wax oo keenay weerarka habeenimo ee magaalada Makalle ee waqooyiga ku taalla caasimadda oo ah gobolkaasi iyo weliba magaalada Daasha gobolka ayaa ka ugu xasaasisan Itoobiya ee jaarka la Eritrea ee xuduudda ku dagaalameen ka hor inta aanay labada dal nabadda isla gaarin sanadkii 2018 Abiy ayaa khudbad qaran oo jeediyay waqti dambe Arbacadii ku sheegay in weerarka looga gol lahaa in Itoobiya loogu nugleeyo cadow dibadda iyadoo aanu magacaabin cadowgaasi ciidamada ayaa iyaguna waqti dambe Arbacadii sheegay inay sameeyeen iska caabin weerar isla markaana sheegtay khasaare culus Abiy ayaa sheegay in militarigu ay fulin doonaan howlgallo dheeri ah maalmaha soo socda Itoobiya ayaa Arbacadii ku dhawaaqday 6 bilood oo xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay Tigrayga iyagoo sheegay dhaqdhaqaaqyo iyo xasarada sharci darro ah ay halis ku yihiin qarannimada dalka TV-ga Tigrayga ayaa ku warramay in taliskii militariga waqooyiga Itoobiya ay u tallaabeen xukuumadda Tigrayga aanay dhab ahayn taasoo xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu sheegay AP TPLF ayaa si weyn ugu jirtay militariga Itoobiya iyo isbahaysiga dawladda ka hor intaanu Abiy la wareegin xafiiska sanadkii 2018 isla markaana aanu shaacin isbeddello siyaasadeed oo keenay inuu ku guuleysto abaalmarinta Nobel sanadkii hore mas'uuliyiinta Tigrayga ayaa ka soo horjeestay in dib loo dhigo doorashooyinka qaran ee Itoobiya sababtoo ah xanuunka COVID-19 taasoo sii kordhinaysay sii joogitaanka xafiiska ee Abiy bishii Sebtembar ayaa gobolka u qabsaday doorasho ka gaara dawladda federaalka taasoo kicisay xiisadda gobolka oo ay ku nool yihiin ilaa 5 milyan oo qof maalintii Isniintii ayaa Debretsion Gebremichael oo ah hogaamiye Tigray ah uu ka digay in khilaaf uu dhiig ku daato qarxi karo isagoo ku eedeeyay hogaamiyaasha Itoobiya iyo Eritrea inay sameynayaan dhammaan diyaar garowgii lagama maarmaanka ahaa si ay u bilaabaan dagaal ka dhan ah gobolka ma aanay jirin jawaab ay markiiba Eritrea ka bixisay arrintaasi Itoobiya ayay hore u haysatay culays ka saarnaa khilaafka ka dhaxeeya Masar ee la xidhiidha mashruuca biyo xidheenka weyn ee Itoobiya kaasoo soo leexiyay dareenka madaxweyne Donald Trump ee Afrika dadka arrintan la socda ayaa ka warwarayay muddo bil ah xiisadda isa soo taraysa iyo saameynta ay ku yeelan karto Geeska Afrika oo Abiy la fahantiisu nabad ka sameynayay